madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida wadanka Itoobiya ayaa magaalada Dhagaxle ee deegaankaasi waxa uu ka sagootiyay ciidamo badan oo ka tirsan booliska gaarka ah ama new booliska. Ciidamada ayaa la sheegay in la geeyin doono jidda hore ee gobolka Tigray halkaas oo ay muddo bilooyin ahba colaad ka taagneyd. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa u muuqda inuu ka jawaabayo baaq uu dhowaan deegaanada u diray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ahaa inay ciidamo soo diraan si dalka looga difaaco waxa uu ku sheegay cadawga TPLF. faahfaahin ka soo baxayso dagaal saaka ka dhacay deegaano hoostaga gobolka Mudug. Wararka imaanayo gobolka Mudug ee Soomaaliya ayaa sheegaya in iska hor imaad ay saaka ka dhaceen deegaano u dhaxeeyo Camara iyo Xiinlabi kuwaas oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxayo dagaalka saaka ka dhacay inta u dhaxayso deegaanada Xiinlabi iyo Camara ee gobolka Mudug. ciidamada dowladda oo ay taageerayaan kuwa Galmudug oo saaka u dhaqaaqay dhinaca Camara ayaa la sheegay in dhexda ay u galeen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab halkaasna uu ka dhacay dagaal aad u culus. dowladda waxay sheegtay in ay la wareegtay deegaanka Camara halka Al-Shabaab ay sheegtay in si buuxda ay gacanta ugu hayso deegaanka. xitaa ciidamada dowladda aysan ku soo dhaweyn halkaasi wali wax war ah lagama hayo khasaaraha ka dhashay dagaalka ee dhabta ah. 13 qof oo ku dhintay booyad rogmatay oo shidaal siday. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay kadib shil ka dhacay booyad shidaal siday oo ku rogmatay galbeedka Kenya. shilka ayaa dhashay markii darawalkii booyaddu uu isku dayay in uu ka leexiyo baabuur xamuul oo uu qarka u saarnaa in uu ku dhaco xilli uu marayay wadada mashquulka badan ee isku xirta magaalooyinka Kisumu iyo Busia. dadka waxay durbadiiba ku xoomeen goobta uu shilka ka dhacay si ay shidaalka ay u soo dhurtaan. ku dhawaad 11 qof ayaa ku dhaawacantay shilka kuwaas oo haatan lagu daweynayo isbitaal ku yaalo deegaanka. xafiiska u doodo arrimaha xuquuqul insaanka ayaa ka codsaday Somaliland inay sii deyso 42 qof oo aanan wax dambi ah lagu soo oogin kuwaas oo 26 bishii Juun lagu xiray magaalooyinka Boorame xilli ay siteen calanka Soomaaliya. dadkan ayaa ku xiran 2 xabsi oo ku kala yaalo magaalooyinka Jubilee iyo Boorama sida uu sheegay xafiiska xuquuqul aadanaha ee Jamhuuriyadda Somaliland. xafiiska ayaa intaas ku daray in sida uu dhigayo dastuurka Somaliland dadka la xira waxay xaq u leeyihiin in muddo 48 saacadood gudahood la horgeeyo maxkamadda. wasiirka waxbarashada ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa sheegay inay horumarinayaan manhajka waxbarashada ee dugsiga sare sidoo kalena ay daabacayaan guud ahaan manhajka lagu wareejiyay madbacadda qaranka. wasiir Axmed Maxamed Diriye Torno ayaa intaas ku daray in madbacadda cusub ee Somaliland oo ah mid casri ah oo dhowaan la soo iibiyay si toos ah loogu wareejiyay howlihii daabacadda manhajka taas oo markii hore ay ka shaqayn jireen shirkado gaar loo leeyahay. qorshaha ayuu wasiir Torno ku sheegay inuu yahay in madbacaddu ay daabacdo buugaag manhajka sanad dugsiyeedka soo socdo. maxaa looga hadlayaa hal fadhi xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. xildhibaanada baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa maanta kalfadhi kule Jigjiga halkaas oo ay kaga doodayaan ajandayaal dhowr ah iyo ansixinta xeerar kala duwan. lambar 1 ansixinta hadal qoraaleedka kala fadhiga 12aad. lambar 2 dhageysiga iyo ka doodista warbixinta gobolada
xildhibaanada DDS. Lambar 3 dhageysiga iyo ka doodista warbixinta maxkamadda guud ee DDS. Lambar 4 warbixinta hanti dhowrka Outerka. Lambar 5 dhageysiga ka doodista iyo ansixinta warbixinta waxqabadka xukuumadda DDS SM 2013. Lambar 6 ansixinta miisaaniyadda 5 SM 2014. 7 ansixinta bayaanada kala duwan. Lambar 7 bayaanka dib loo habeeyay ee xafiiska hanti dhowrka. Lambar 7 ansixinta bayaanka diiwaangelinta hantida mas'uuliyiinta. Lambar 7 haddana ansixinta bayaanka shaqo abuurka. 4 ansixinta bayaanka aasaasiga komishinka baadhista tacadiyada. 7.5 bayaanka maxkamadaha DDS. Dhanka kale, hogaamiyaha Taliban ayaa sheegay in kooxda ay si adag u taageerayso in xal siyaasadeed lagu soo afjaro dagaalka Afghanistan. Hibatullah Akhundzada wuxuu sheegay in aysan ogolaan doonin in Afghanistan laga soo abaabulo tallaabooyin halis gelinaya amniga dalka kale. Hadalkan ayaa imaanaya xilli maalintii labaad saraakiil matalaysa Taliban iyo dowladda Afghanistan uu wada hadallo uga socdo Qatar. Suhail Shaheen oo ah afhayeen u hadlay Taliban ayaa shalay beeniyay in kooxda ay u weecatay inay qaado tallaabo militari kadib markii dhowaan ay qabsadeen dhul badan, balse dagaalada Afghanistan laga bartay oo kale ah in xalka siyaasadeed uu yahay in nabadda la ambaqaado. Arrintan ayaa ku soo beegmatay xilli dagaal culus ay ka socdaan qaybo ka mid ah Afghanistan. Dowladda Afghanistan waxay sheegtay in Taliban ay ka qabsatay deegaan ku yaala gobolka Barwan. Gabadh uu dhalay safiirka Afghanistan u fadhiya Bakistan ayaa la afduubtay, inkasta oo markii dambe la sii daayay. Koox aan heebtooda la aqoon ayaa gabadha afduubay waxay u geysteen dhaawac. Silsilad Ali-Qil ayaa muddo saacado ah la haystay kadib markii la qafaashay xilli Jimcihii ay ku wajahnayd gurigooda oo ku yaalo caasimadda Bakistan ee Islamabad. Wasiirka arrimaha dibadda Afghanistan wuxuu sheegay in gabadhan si xun loo jirdilay, isla markaana ay arrintan dacwad ka gudbin doonto. Waxaa in muddo ah sii xumaanayay xiriirka diblomaasiyadeed ee Afghanistan iyo Bakistan. Saraakiisha Bakistan waxay sheegeen in gabadha ay baabuur ku riteen kooxdii afduubka ka dambeeyay oo ay garaaceen. Gabadhan ayaa haatan lagu daweynayaa isbitaal. Safiirka wuxuu ku tilmaamay dhacdada mid weerar guraacan ah. Wuxuu intaas ku daray in xaaladda caafimaad ee gabadhiisa ay wanaagsan tahay.